Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta mowduuceena waxa uu ku saabsan yahay sida ugu fudud ee imtixaanka jaamacadda loo akhriyo. Mowduucani waa mid ka mid ah 10kii mowduuc aan ugu talagalay ardayda jaamacadda bilaabaysa. Waana mowduucii lixaad. 5tii qaybood oo hore haddii ay ku dhaaftay, waxaan kuu soo dhigayaa halka hoose ee kommentiga. Halkaa ka soo daawo. Inta aan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like saar, sababtoo ah dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Walaal, haddii aan talo wanaagsan ku siiyo oo ku anfacaysa, markuu semesterku bilowdo, isku day in aad casharada akhrisid, waliba maalin kasta nus saacaad ku akhrisid si casharada. Taasi waxay ka anfacaysaa markaad imtixaanka weyn galaysid in casharadu ay dulmar oo kaliya kaaga baahdaan, aysan kaaga baahnaan xifdin iyo wixii la mid ah. Isku day casharka maalinta lagu soo dhigo in aad akhrisid, ama saacad ku akhri ama nus saac. Markasta oo wax akhriskaaga uu bato waa markasta waxa lagu soo dhigo aad xifdinaysid oo aad fahmaysid. Markii jaamacadda imtixaankiisa la galayo, haddii aadan wadan kaar iyo hall ticket, imtixaanka gali maysid oo waa lagu diidayaa. Kaarka waxa uu ka turjumayaa in aad tahay arday jaamacaddan dhigta. Hall ticketkana waxa uu ka turjumayaa in aad bixisay dhammaan lacagihii semesterada loogu lahaa iyo in aad diyaar u tahay inaad imtixaankan fadhiisatid. Markaad imtixaanka galaysid, labadaa inaad soo qaadato waa muhiim. Beri oo kale markaad imtixaanka galaysid, habeenkeeda waxa aan kaaga digayaa in aad wax akhris ku gaartid 6 saac oo habeennimo. Waan kaaga digayaa, sababtoo adiga waxaa is leedahay wax akhri oo wax kororso, laakiin adigii bay wax kaa sii baxayaan. Xilligaa 6 saac iyo wixii ka dambeeya ma ahan xilli wax akhris loogu talagalay. Maskaxduna diyaar uma ahan in ay wax xifdiso oo wax akhriso. Maalinkaad imtixaanka galaysid, habeenkeeda waqti badan oo aad ku seexatid qaado, waayo hurdadu waa muhiim. Naftaada ayaa degaysa. Ardayda badankooda markay imtixaanka imaanayaan, waxa ay soo ilaabaan kaarka iyo hall ticketka, kadibna waa laga soo ceyriyaa. Anigu markaan jaamacadda dhigan jiray waxaan samayn jiray qorshe aad u fiican. Subaxda imtixaanka galaya habeenkeeda ayaa kaarka iyo hall ticketka waxaan ku sii ridan jiray shaatiga iyo surwaalka aan biri qaadan doono, si aan u ilaawin oo markasta jeebka igu jiro. Xitaa haddii aad ilowdid, qaybta maaliyadda ee jaamacadda ayaa waraaqad caddayn ah laga soo qaad ku caddaynaysid in aad soo ilowday. Mararka qaar waa dhici karta in lagu siiyo, in lagu diido waa macquul. Mararka qaar saf baa galaysaa dheer oo aad sugaysaa. Intaad safkaa ku jirtid baa laga yaabaa in imtixaankii la bilaabo. Haddaba xalay waan soo seexanay oo waqti badan baa seexanay. Imtixaankiina waan soo akhrinay, kaarkii iyo hall ticketkiina waan soo qaadanay. Hadda waxaan diyaar u nahay inaan imtixaankii galno. Markaad albaabka imtixaanka soo istaagtid, waxaa jira daqiiqado albaabka hortiisa la istaago intaad imtixaanka la galin ka hor. Daqiiqadaha waxaa samaysaa ardaydaas ku fasalka tihiin la fariiso oo markay wax akhrinaya la akhri. Waxaa laga yaabaa in halkaa wax aad ka fahantid imtixaanka lagu keenaa laga yaabaa. Laakiin waxaan kaaga digayaa in arday iska sheekaysanaysa maalayacni meel iskaga fadhida in aad la fadhiisatid. Taasi waan kaaga digayaa. Hadda imtixaankii baa soo gashay oo kursigii baad ku fadhiisatay. Imtixaanku 3 qaybood buu noqonayaa: kuwo fudud oo aad taqaanid, iyo kuwo fudud laakiin laga yaabo in aad ilowdid cabaar kadib inaad ilowdid laga yaabo, iyo kuwo adag oo aadan garanayn. 3daa qaybood bay isugu jiraan. Waxaan kugula talin lahaa marka ugu horreysa inaad ku bilowdid su'aalaha aad is leedahay waa ilaawaysaa. Waayo haddii aad tiraahdo hadhow waan u soo laabanayaa, waxaa laga yaabaa inaad ilowdid. Marka su'aalaha ku bilow. Markaad su'aalaha ka shaqaysid, kadib waxaad ku xijinaysaa su'aalaha fudud. Markaad su'aalaha fududna ka shaqaysid, markaas ayaad u soo jeesanaysaa su'aalaha adag. Waayo su'aalaha adag waqti aad ku fakartid bay u baahan yihiin. Markaad imtixaan ka soo baxdid, ardayda ha weydiin su'aasha maxaa ka dhigtay, taas khalad bay iga ahayd, waxaas ha weydiin. Sababtoo ah su'aal kuu saxan baa waxaa laga yaabaa in uu isaga khalday oo hadhow ku dhaho su'aashaas noocaas ahayd. Hadhow walwal bay ku galinaysaa. Adiga cid ka sheekaysanaysana ha la fadhiisan, dadkan ha uga sheekayn imtixaankii aad soo gashay. Intaas ayuu mowduuceena ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.